maanta madaxda ugu sarreeya dowladaha Iiraan waxay ka soo qayb galeen munaasabad banaanbax ahayd oo lagu qabtay mid ka mid ah fagaarayaasha ugu waaweyn oo ku yaala magaalada Tehraan oo caasimadda dalka Iiraan ah. waxay banaanbaxan ay madaxdu ay ka qayb galeen xilli Israa'iil ay digniin ay soo saartay oo ay dadku ugu baaqday inaysan ka qayb galin banaanbaxa. haddaba muxuu yahay banaanbaxani? waa mid ka mid ah munaasabadaha ay qabtaan Iiraaniyiinta maalin walba oo Jimco ugu dambaysa bisha barakaysan ee Ramadaan. waxaana lagu xusaa ama munaasabadan ay gaar ay u tahay ciidanka Qudus oo ka mid ah ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan iyo tacadiyada ka dhanka shacabka Falastiiniyiinta ee reer Israa'iil ay geystaan. waxaa ka soo qayb gala marka saraakiil, wasiirka arrimaha dibadda, madaxweynaha dowladda Iiraan iyo mas'uuliyiin kale. waxaana la isweydiiyey miyaanay baqanayn, weliba xitaa markaad eegto dharcad mooye ciidan si gaara u ilaalinaya oo amniga xaqiijinaya goobta kama muuqan. wariyaasha ay goobta kula hadleen si nabad ah, weliba waxaad dareemaysaa dhinaca kalena dhaqdhaqaaqa caadiga ah inuu ka socdo magaalada Tehraan oo caasimadda Iiraan oo gawaaridii ayaad arkaysaa oo madaxda ag maraysa iyo shacabkii oo si caadi ah uga qayb galaya munaasabadda. laakiin Israa'iil ayaa waxay duqaysay meel sidaas aan kaga fogeen halkay ku sugnaayeen madaxdan. waxaa la duqeeyay sida la sheegay agagaarka waddada loo yaqaano waddada kacaanka oo qiyaastii 1 kiiloomitir u jirto goobta sida weyn ee banaanbaxu uu kaga dhacayay oo ay mas'uuliyiintan ay ku sugnaayeen. laakiin lama sheegin xilliga weerarkan uu dhacayay in mas'uuliyiinta goobta ay jooganayeen in kale. laakiin duqayntaasi markii ay dhacday kadib waxay dadkii shacabka ahaa ay munaasabadda ka qayb galayay u jeesteen halka gantaaladu ay ka dhaceen iyaga oo ku dhawaaqaya alla ayaa weyn iyo erayo kale. waxay muujiyeen mar kale geesinimo oo waxay yidhaahdeen banaanbaxin uu inoo soconayaa, dadka halkaasi waxyeelada ay ku soo gaartayna waan la xanuunsanaynaa. waxay eegeen marka goobta qiiqa uu ka baxayo, sidoo kale waxay eegayeen goobaha kale ay ku hareeraysan oo ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen maanta. Cali Larajani iyo mas'uuliyiin kale ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa. xogayaha golaha amniga qaranka ee dowladda Iiraan ayaa si cad waxa uu sheegay in weerarada Israa'iil ee lagu qaado goobii ay ku sugnaayeen dadka isugu soo baxayay ay ka dhigan tahay cabsi iyo tabardarro oo ay dareemayso Israa'iil, sida uu sheegay Cali Larajani. waxa uu sheegay kadib markii uu dadka goobtaasi uu kula hadlay in ciidamada Israa'iil ay ku jiraan xaalad daciifnimo tii ugu hooseysay. wuxuu yiri dhibaatada Trump waxay tahay in uusan fahmin in shacabka dowladda Iiraan ay yihiin dad aad u xoog badan, wacyi leh oo sidoo kale leh go'aan adag. markasta oo cadaadiska ay kordhiyaanna go'aanka ay qaadanayaan dadka shacabka ayaa sii xoogaysanaya, ayuu yiri Cali Larajani. waxa intaas uu ku daray inaysan ka leexan doonin aragtida dadka shacabka ah iyo inay shacabkooda ay difaacaan, weliba si nabad ayuu sheegay in mowqifkooda ay ku muujinayaan. waa maxay maalinta Qudus? magaalada Tehraan oo caasimadda dalka Iiraan ah ayaa Jimcaha ugu dambeeya bisha Ramadaan loo dabaaldegaa munaasabadda maalinta Qudus, iyadoo ay jirto xaalad xasaasi ah ayna ku soo beegantay munaasabadan. dowladda Iiraan waxay isku dayaysaa inay muujiso midnimo gudaha ah, gaar ahaan kadib markii Mujtaba Khamenei loo magacaabay hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalkaasi Iiraan, iyadoo isla waqtigaasi weerar ay weli ay socdaan. madaxweynaha dowladda Iiraan, wasiirka arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiinta kale ee goobta ka hadlayna waxay sheegeen in midnimadooda ay sii xoogaysan doonto, dagaalka ay sii wadi doonaan, iyagana ay yihiin cidda guulaysanaysa. dhinaca kalena ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan waxay weli ay ka hadlayaan markabkii Mareykanka uu lahaa ee US Abraham Lincoln lagu magacaabo. inkastoo Mareykanka uu beeniyey hadallada ilaalada kacaanka ka soo yiray, haddana mas'uuliyiinta dowladda Iiraan waxay leeyihiin markabkaasi waan beegsanay, dib ayuuna u laabanayaa. Mareykankana wuxuu yidhi warkaasi waa mid been abuur ah. maxay kula tahay adiga qaybta hoos aragtidaada ku reeb, like share muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. qaar ka mid ah saraakiisha dhanka amniga iyo khubarada Israa'iil ayaa waxay taagan yihiin weerarka ka dhanka dowladda Iiraan waxaa la bilaabay iyada oo aan waaqiciga la isu sheegin. saraakiil ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa waxay qireen in weerarada militari ee lagu qaaday dowladda Iiraan la fuliyay iyadoo uusan jirin qorshe siyaasadeed ama mid istiraatiiji ah oo cad oo ugu yaraan lagu bedeli karayo nidaamka talada haya, ama ugu yaraan lagu keeni karayo oo lagu abuuri karayo mashruuc ka duwan. warbixintan oo laga soo xigtay saraakiisha dhanka amniga waxaa lagu sheegay in arrintan aysan suuragal ahayn in si degdeg ay u dhaawacdo awoodda militari ee dowladda Iiraan in la burburiyo xarumaha gantaalada laga soo tuuro, ilaa iminkana aan lagu guulaysan yareynta awoodda ciidamada cirka ee dowladda Iiraan. si kastaba saraakiishu waxay sheegeen inaan si dhaba loo diyaarin qorshe ku saabsan waxa dhici doona haddii nidaamka dowladda Iiraan la daciifiyo ama ugu yaraan la burburiyo oo laga adkaan waayo. taasina waxay walwal ay ku abuurtay saraakiisha iyo xubnaha gudaha ee Israa'iil. warbixintu waxay muujinaysaa in walaac siyaasadeed iyo mid militari uu ka jiro gudaha Israa'iil, kaasi oo aanan caddayn ilaa iminka cidda bedeli karaysa nidaamka Iiraan. fawda iyo dagaal sokaya haddii uu dhaco qorshaha Israa'iil kaga degsan arrintan, iyo maadaama Iiraan laga adkaan waayaba tallaabada xigta ay qaadi karayaan Mareykanka iyo Israa'iil.
mar walba oo aad dagaal gasho ama aad doonayso inaad wax fuliso qorshe la'aan way adag tahay inaad wax qabato. weliba waxaa la yidhaahdaa markaad doonayso go'aan inaad qaadato waa inaad laba dhinac wax ka eegto, faa'iidada iyo khasaaraha, kadibna isku miisaanto oo aad qaadataa tan kuugu wanaagsan. laakiin qaadashada go'aanka ka hor waa inay kuu caddahay waddooyinka aad maraysid haddii tan ay kaa soo xiranto halka kale ee aad aadi lahayd. aragtidaada nala wadaag, laagisaan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.